Jajaleestaanka ah dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku guuleystay doorashada madaxweynenimada ee ka dhacday dalkaasi. Codadka doorashada wareegga labaad ee la tiriyay dadka codkooda dhiibtay 75% waxay codkooda siiyeen Mr. Volodymyr. Wareegga labaad ee doorashada waxaa codbixinta doorashada madaxweynenimada ku hogaaminayay Mr. Volodymyr isagoo hoggaanka u hayay 39 musharax. Mr. Zelensky wuxuu loolan adag ula galay madaxweynaha hadda xilka haya dalka Ukraine Petro Poroshenko. Madaxweynaha Ukraine wuxuu awood u leeyahay inay hoos yimaadaan ammaanka gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda wixii la xiriira. Mr. Zelensky wuxuu taageerayaashiisa u sheegay inuusan weligii ilaawi doonin. Mr. Zelensky wuxuu xilka madaxweynenimada marka loo dhaariyo uu hayn doonaa muddo 5 sano ah. Mr. Poroshenko 2014 xilka madaxtinimada loo doortay wuxuu codbixinta doorashada wareegga labaad ee kama dambaysta ah uu ku helay 25% oo kaliya. Mr. Petro oo ah nin maalqabeen ah waxaa xilka loo doortay markii ay meesha ka baxday dowladdii gacan saarka la lahayd Ruushka. Mr. Zelensky oo ah 41 jir aan siyaasadda khibrad badan u lahayn ayaa si lama filaan ah ku noqday madaxweynaha dalka Ukraine. Isagoo aan lahayn khibrad siyaasadeed haddana xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada wuxuu musharaxiinta kale uu kaga duwanaa barnaamijyada siyaasadeed uu soo bandhigayay. Xamse Kaafi Axmed, wararka telefishinka caalamiga ee GBC.